nabi aadam markuu sidaa salaantii loo baray baa rabbigii iyo labada gacmood kala dooraa la yidhi midigtii buu doortay waa la furay waxaa le waxaas nuurhayoo dhan waa wixii kaa farcami lahaa iyo wixii jannad u qadarayd malaayiintaasoo dhan jannay gelayaan tanna wixii xaggan soo maray waa wixii madmadoobaay ahlu naarkaa wey qaybtii dhanka midig iyo wuxuu ku arkay axad aad u ifahayo weji quruxsan nuur dheeraada ka kacaayo nabiyullaahi aadam markaasuu allow addoonkan carruurtayda ka mida waa kuma waa nabiyullaahi daawuud baa le wiil dhalan doono weeyo oo tacfiirtaada dambe oo daawuud la yidhaahdo wuxuu arkay waxaa u qoran cimrigiisa 60 sano ilaahu cimrigiisa ma 60 baad ka dhigtaa ha loo kordhiyo intaasaa noogu qorshaynaa la yidhi wuxuu yidhi anaa 40 oogu daray cimriga 40 looga gooyo ilaahay wuxuu yidhi anta wadaaka haddaad ugu ogolaato waa loogu darahayaa 60kii nabi ilaahi daawuud maxaa loogu daray 40 aabbihii looga soo gooyo 100 sano nabi aadam cimrigiisuna meequu ahaa 1000 sano idan cimrigiisa hadda maxaa loo qoray nabi ilaahi aadam 960 sano nabi ilaahi aadam 960 sano suu u xisaabinay wuu iloobay inuu 40 bixiyey markay 960 sano dhammaatay yaa malakumuud u yimid nabi ilaahi aadam wada adduun la soo maray hadde jannada la iska soo saaray dhulka lagu tarmay asagii carruurtu dhalay keliya iyo waxay sii dhalan ay yihiin dhowr boqoloo kun sano wey hadda la socda 1000 sano malkumadu oo socdaa in xageed u socotaa naftanaan kaa qaado waqtigeed waa dhammaaday wuxuu yidhi malkumadu waa soo degdegtay waad dheeraynaysaa 40 baa ii hadhay nabiyullaahi aadam waxaa leeyahay 40 soo adigii malkumadu rabbi buu u sheegay allow addoonkii saasuu leeyahay maxaan sameeyaa waxaa le aadamow soo adigu wiilkaada siiyey ma siinin buu ma siinin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi aadam waa dafiray kadibna carruurtiina dafiraadii baa yaa raacday wuu hilmaamay wuxuu baxshay wama qastin kas kamaa nabigu wuu hilmaamay wuu iloobay fanasiya wanasya duriyatuhu jaxada duriyatuhu aabbahood baa shay laisku ogaa dafiray hilmaan dartii wixii laisku ogaabuu hilmaamay ummaddiisii carruurta farciisana maxaa raacay oo galay hilmaan iyo dafirada indha caddayn waa kaad soo taagantihiin cid wada indha caddaynaysaan halkaasay baashu ka timid kadib hawshu markay sidaa noqotay wuu ogaaday nabiga hawshu ku caddaatay nafti buu dhiibay qisadu qiso saa ku timid weeye waa salaan hore oo janno ka soo bilaabatay adduunkana ilaahay keenay nabigu faafiyu idin leh وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو حنا فري ب7 تضبح حديث كوين صوم الرأيه بعيادة المريض الروح بك إن لبوغدو ولا زيارته ولا سلام وقلبك الله رسي ولا قور قبي وكوهشاني آد بأوغو فرحي ضدك وقد دواناني وحقوك يقول يا روح مسلم كا واتباع الجنائز جنازة الله راعو الروح مسلم كا مركا لقادميت كيس لقد بتقول الله راعو أما وحلقا قاد أما الرعبة وتشميت العاطسي midkii dhisaday loo duceeyo yarxamuka allah la yiraahdo ilaahay ku xamdiyo wa nasr ad-daciif midka taagta daran la dulmiyayna loo hiiliyo wa nasr ad-daciif ninka taagta daran tabarta daran isdifaaci karina isku filayl la garab istaago wa awn al-madlum kala gardaran yahay la kaalmeeyo nasr ad-daciif يعول المظلوم ومن المبادئ الكليه شغلكم لها روح مبدا يسيد دينتيس عقيدتي وح امسن شغلكم لها لبا قالوا هردمي هذا دركته oo midna daalim yahay midna madluum yahay waxa ku banaan ama waajib kugu hadad awood inaad u heeliso midka laga gardaran yahay waa khulq islaami waa qadiya aqliya samciya way ruuxa laga gardaran yahay la dulmahayo ahad walba u danqanay wa hadii adigu damiirkaadu nool yahay oo bini aadamta oo damiir aadan hay xayawaanku xataa waa sida
xayawaanku markaad aragteen waa uu suheelinaya markuu arka midka kale uu dulmahaya kale iskugu tagaaya xayawaanka qaarkood waa noocaas marka madluumku ama kaafir ha noqdo ama muslim ha noqdo waxa weeye in loo heeliyaa bannaan waa akhlaaqda kulliga ah waa waajiba waa mabaadida islaamiga caamada een xilli iyo mabda iyo diin iyo qoys iyo qabiil midna aan ku xidhnay hadii kala adduunku waa rogmanaya وإفشاء السلام سلامته اللباهي وهذا بيت القصيد سلامته أو اللباهي عدو والبلا سلامه وإبرار المقسم أي الحالف نينك دارتي والله أنا زيدا يلي والله ما أنت إناد الراعي ما أنت إناد إلى السوق قديني إناد كان إلى قماني واحد أو دنوي إن الله بحر ما سمعوا دارت عن لقيت شبنين هي إنا مري ما دارت دار الآن بابا نكون راعي لها إنا مري بعد لذا وإبرار المقسم وحقوق قولها إنه كل طيور ربا وتراعوا ما كهارين مركا ويال دارتها كهاللينني متفق عليه هذا لفظ إحدى رواية البخاري لفظ هذا أنه شيخنا بروا البخاري رواية سميت كمدة الفاظ بدن رواية كلا بدن باجرة محل شاهد هنا نبي وحنا فرائنا فافنو سلامتا ونمض ودن سلامنو عد أن قرأينو مسلم يعد أن قرأينو حكم كسلامتا والله سو خلافي وذا دو حقيقة من سلامتا باللوغ ده يردين تدوا واجب ومحاو الدليل له وحيدن سلامتا الجنة لغا سو بلابي النبي آدم لبري ملائك كجوابتي ربيين يدي وسلامتا دي انت نوشاي iyo salaanti warasadaada la yiri weligeed nabi ilaahay aadam ilaa wiilkiisa maxamed intii nabi ay la soo faray ummadoodii sunnaba noqon kartay dheh waa diinul anbiya il aam weeye دين أنبياء جود ويو نبي آدم إلى نبي محمد بقول لباتني أفركن أو النبي بإله صدر الله إلى هذا حديث ضعف يكون جري وهذا صحيحين بقول لباتني أفركن أو النبي يصدح بقول طبعا يشان رسول وهذا وحيد هذان كلمات كقرآنك كلموين كجمل كيسة iyo tirada ambiyada islaam quraanka jumalkiisa kalimaadkiisa waa 124 kun oo kalimaad la yiraahdo jumalkiisa wada yiraahdo waa mas'ala khilaafiye ambiyaduna waa 124 kun oo nabi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk inta la idin sheegay ee quraanka la idin ku sheegay 25 toba kama hadlay waxaan ka hadlaynaa wixii la sheegay iyo waxaan la sheeginba taas loo jeedaa إذا وحيلين سلامة النوع عاصي سيدا أو علوس آخر جنة كسو بالله بطي إفك الدنيا تمد نبي والبلفري الرسول والبلوسو ديبي رسولنا ما هن ما يهو باش واجب يده رندت هدون واجب بلوغنا واجب وهرق يرق سيدا قبا ابن عبد البر سو إجماع بسو قرين سنتها بلوغ هوري إنا أضغو بلوغو inay sunna tahay muakkada yujma' soo guuriya ibn abdulbar ijma'aadkiisana farba lagu goda hadaan lagu raacin wa mutasahil fi qadiyati hikayat al-ijma' mutasahil wali ra'yi al-jumhur marka qarkood ijma' ka dhiga sida ibn jarir tabari oo kale hada xukumkeedu waa waajibi waa sunna la isku haya maxaa loo badan yahay ala aqal taqdiir inay sunna tahay nimanka yiri waa waajibna warkood war sahlan ما حديث بحكو عد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام صلاته اللباهية والأمر بالصفة وأمر بالموصوف بالليل هذا النبي وحونا فري الصفة المانعة صلاة إلا باهية باهنت واصفه شيء اللباهين يروى موصوفه وصلاتي إذن هذه الله يسفر باهنتي وحكسي إلا بلاريو أو la badiyo waxa ka sii daran oo amarka ka mudan salaanta qudhigeedii laftirkeedii nabi wuxuu nafaray aadaanka inaan la maanayno iqaamadana aan wetrino al-amru bisifati oo shafci watriga wa amrun bil mawsuuf aadaanka qudhigiisa la yiraahdo nafs shay way qaa'idadu al-amru bi ifsha'i as-salam wa amrun bi sifati as-salam asalkeeda ka waran ka basi daran way أوامر بدن با قرآن سنة كتمت
sunnada ku timid ijmaaca marka hadduu asaxana haddii inay sunno tahay waan yeelaynaa nimanka khilaafana waxaan leenahay ijmaacaysan arag adilo dadka waa ka qarsoon tahay